السلام عليكم قدومي. عليكم السلام. قدومي حالي waxaan joogay xafiiska shirkadda waxaan ku dhacay amaan badan ana markii wax laga weydiiyay waxaan riwaad kaliya ku jira wadanka ee qoontada u sareyso adeer ka bax warka shirkadde aawo reportkii lagu diray degdeg ahaa قدومي dee maalmaha wax ku mashquulsanaa arrinkii shirkadda waa tidda hal yar aad iska jirtay maxay tahay jaamac shirkadan adiga ka sheekeynaysid maana shaqaale shirkadeed ahayn adeer shaqa laga rabaa haddii aad shaqayso weysana meeshan ma wada joogayno haddana ordo tag xafiiskaaga iga daa rawaadan aniga aad la imaanaysid mar walba gudoomiye axmed waa doonaya inuu soo galo baan soo daaya may adeer ha igu soo dayn ninka mar aliyaala markuu ii soo galo mushkilad unbuu wadaa weligay ma arkin isagoo wax wanaaga wada markaa uu isoo galo adeer mushkiladda ila xalli unbuu leeyahay anuu mushkiladiisa ka shaqeeyaa ha igu soo dayn waa runtahay gudoomiye waan celiya mise soo daayaa bal iska soo daa adeer hadduu dhiigga nagu karanayaa haye waayo gudoomiye salaan hawshiina si qurux badan oo wanaagsan ayay noogu dhammaatay laakiin gudoomiye mushkilad yar ayaa jirta dhagayso markaad ii imaanaysid xafiiska ee doonaysid in mushkilad maamul xalliyo waxaad ku soo dartaa 3 qodob haddii 3 qodob aad ku soo dareyn wax ku oolka ah aniga ha ii imanin xafiiska inaan soo gelin haye gudoomiye iga raalli haw waxaa jira shir weyn oo ka dhacaya dalka dibaddiisa waxaana laynooga baahan yahay dadkii ka qaybgeli lahaa inaynu howlgelino waxaad ka warantaa haddii aynu ku qorno ka waran yaasir waa munaafaq miyaanad arag markuu dibadaha joogo wuxuu ku hadlayo iyo shirkadda wuxuu ka sheegayo ilaa sirta shirkadda uu bixiyaa wuu caayaa habeenii maalin wuu caayayaa markaasaad leedaha howl u diro dhici mayso may gudoomiye inaga daakaasi hadduu sidaa yahay ka waran muuse waa nin cudurdaar badan oon ogoleyn inuu qabto shaqo kale shaqo wuxuu ku oranayaa markasta ma qabanayo shaqo ka baxsan tan heshiiska lagula galay haa ka waran gudoomiye haddaba maxamed haa haddaad heshay waa ninka keliya ee ku habboon shaqadan mar kasta shaqadaad u dirtana siday tahay buu u qabanaya waayo gudoomiye warkaasi wuu dhan yahay haddaba waa ninka keliya waxqabadkiisa uu ka badan yahay inta loogu talagalay waana ninka keliya fahamsan hiigsiga iyo ujeedooyinka aanu leenahay waxa uu ku jiraa dadka farakutiriska ah ee shaqadana daacadda ka ah isaga u dir oo weliba deg ugu diyaari wax